waxaan jeclaystay inaan naftayda iyo idinkaba aynu isxasuusino salaada subxiga ee kamida salaadaha shanta ah ee Ilaahay adoomadiisa ku farad yeelay ihtimaamka goonida ah iyo cinaayada goonida ah iyo sida goonida ah ee sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo amray iyo bishaarooyinka waaweyn ee ku sugan qofku markuu habeenkii seexdo oo raaxadiisa uu qaato waxa ugu horeeyo uu noloshiisa subxiga ku bilaabaya waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u guto oo ku caabudo salaada faradka ah ee labada ragca ah waa inuu soo kacaa qofka marka Ilaahay waafajiyay inuu soo weysa qaato beedka Ilaahay yimaado jamaacada ka soo qayb galo toban bishaaro oo nabigu u sheegay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhageyso albisharatu alula waxa weeyaan nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalam man salla subha fahuwa fi dhimmati Allah salaadan subxiga qofkii tukada oo ilaaliya qofkaasi wuxuu ku sugan yahay Ilaahay xifdigiisa iyo damaankiisa iyo ilaalintiisa ayuu haystaa waa qof soo qaatay saakay amaan xagga Ilaahay ka soo qaatay al-Imam Muslim ayaa xadiidka soo saaray bishaarada labaad ee nabigu u sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaadan subxiga oo la ilaaliyo in qofku Ilaahay cadaabkiisa uu ka badbaado oo naarta galin wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam lan yalija an-nar ahadun salla qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha naarta ma galahayo qof tukaday qoraxdu intaynan soo bixin waa salaada subxiga iyo inta aynan dhicin waa salaada casirka qofkaasi naar gali maayo bishaarada saddexaadi waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaadan oo aad ilaalisaa inay sabab kuugu noqoto jannada Ilaahay inaad gashto wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam man salla al-bardayn dakhala al-janna Bukhari Muslim baa soo saaray labadaas qofkii tukada bardaynka ah jannadu galaya waa subxiga iyo casr bishaarada afraad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa sallam in malaa'iktu ay soo xaadirto wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam yataaqabuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahar waxa islakiin cirbinayo isbabadalaha ya dhexdiina malaa'ikta habeenkii ku qoran iyo kuwa maalintii wayajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr waxayna kulmaan oo isdhafan dhaafaan salaada subxiga iyo salaada casrka thumma ya'ruju alladhina batu fiikum kuwii xalay dhexdiina ku hoyday oo ku bariyay baa kor u noqonaya oo xagga Ilaahay u laabanaya fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim Ilaahay waa su'aalaya asagoo ka ogaal badan wuxuu kaga ogaal badan yahay baa Ilaahay su'aalaya kayfa taraktum ibadi adoomadaydiisa uga soo tagteen bal xaaladooda ka waran markaasay waxay leeyeen ataynaahum wa hum yusalluun taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun waxaan ka soo tagnay ayagoo tukanaya waxaana u tagnay ayagoo tukanaya labada xilli ayaa laba xilli oo salaadahaasi ku beegan yihiin ay malaa'iktu isdhaafayaan kuwii yimaada waxay u imaanayaan ayagoo tukanaya kuwii tagaana waxay ka tagayaan ayagoo tukanaya bishaarada shanaad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salaadan qofka ilaaliya oo beedka Ilaahay ku ilaaliya waxa loo geliyaa nuur iyo iftiin taam ah oo dhammaystiran maalinta qiyaamaha oo wax nuur haysta ay yiriin wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam bashir al-mashaa'iina fi adh-dhulami ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah waxaad ugu bishaaraysaa dadka mugdiga soconayo masaajida u soconahaya maalinta qiyaamaha in la siinayo nuur dhammaystiran oo taam ah ugu bishaare
bishaarada lixaad ee salaadan ay leedahay waxa weeyaan qofka cishaha jamaaca ku tukada subxigana jamaacadeeda ilaaliya waxaa loo qoraa qiyaamu layla habeenkoo dhan inuu taagnaa waxaa nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam xadiidka fii صaxiixi muslim man صala الcishaaءa fii jamaaca fakaأnnamaa qaama nisfa الlayl qofkii jamaaca ku tukadaa salaada cishaha waaba isagoo habeenka barkii taagnaa waman صala الصubxa fii jamaaca fakaأnnamaa صala الlayla kullah qofkii subxiga jamaaca ku tukadana waaba isagoo xaloo dhan tukanahayo xaggee ka helaysaa bishaaradaas cadiimka ah in intaasoo ajara laguu qoro xaloo dhan inaad taagnayd laba salaadood oo aad ku ilaalisay jamaacada sababtood bishaarada toddobaadi waxa weeyaan oo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxa weeyaan qofka salaadan ilaaliya wuxuu ka badbaadayaa munaafiqnimada ayuu ka badbaadayaa wuxuu nebigu yidhi ina ahqala الصalaati cala almunaafiqiin salaatu اlcishaa'i wa salaatu اlfajri munaafiqiinta waxaa ugu culus salaadaha waa salaada cishaha iyo salaada subxiga weeye walow yaclamuu maa fiihimaa laatowhumaa walow xabwa walow yaclamuuna maa fiihimaa laatowhumaa walow xabwa hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan labadaas salaadood oo fadiilo iyo bishaaro weyn oo ajar ah way imaan lahaayeen ayagoo cuuryaamiinoo socon waayoo dabada ku siqayaba allah ka dhigin haba ahaatee intay soo xamaartaan oo soo guurguurtaan bay imaan lahaayeen fadaa'isha salaadaani ay leedahay oo waaweyn waxaa ka mid ah labada ragco oo ka horraysa subxiga bal nebi moxamed muxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha rakcataani weeyaan rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labadaa ragco oo subxiga ka horreeya adduunyada iyo dhexdeeda waxa yaalla way ka khayr badan yihiin wax alla waxa adduunyada dhex yaalloo hanti iyo maal ah waxa webiyaal yaalla waxa aan dabaqyays dul saarayno waxa aan haynoo dhan waxaa ka khayr badan labadaa ragco oo ilaahay dartiisa aan u tukanayno oo subxiga ka horreeya haddii marka sunnadeedii sidaa u fadli badatay maxaad u malaynaysaa waxa weeyaan faradkeedii oo waajibkaana maxaad u malaynaysaa fadiilada ay leedahay salaadaani waxa weeyaan ru'yatullah ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qofka laazimo oo joogtaya ilaahay buu arkayaa maalinta qiyaamaha maxaa ka weyni badan nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar ilaahay baad arkaysaan maalinta qiyaamaha dayaxa si aad u aragtaan waxaa la aragtida xaggeeda la iskaga shabbahaya ee maahan kan la arkaya waxa lagu shabbahaya ee xagga aragtida dayaxaa sidaad u aragtaan habeen 14aada jooga oo qof ku ciriirinaya aan la arag ayaad ilaahay maalinta qiyaamaha u arkaysaa fain istaطactum an laa tuglabuu calىa salaatin qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha fafcaluu haddaad awooddaan inaan laynkaga qaalib noqon oo aan laynkaga hormarin salaada subxiga iyo casirka sameeya saasaa nebigu leeyahy calayhi الصalaaةu wasalaam maadaama mu'miniintu ilaahay ay amrayaan arkayaan maalinta qiyaamaha ayaa nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam war camalkaani camal jaliila weeye ilaahay ugu dhowaada dadka raba ilaahay inay qiyaamo arkaanow oo ilaahay u naxariistoo ridihiisa helaanow camalkaana nebigu baraarujinaya sal alla alay wasalam fadaa'isha ay leedahay salaadan waxaa ka mid ah ana almuxaafida calaa salaati الصubxi maca aljamaaca min aطyab الnaasi cayshan qofka salaadan subxiga ilaaliya oo joogteeya oo jamaacada ku ilaaliya waa qofka dadka ugu nolol fiican wa anshatihim badanan jismi ahaan marka la yidhaahdana maalintaas waa qofka ugu nashaad iyo firfircooni badan wa ancumihim qalban qalbi ahaan marka la yidhaahdana waa qofka ugu farxad badan oo ugu qalbi qabow dadka weeye nebigaana yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam wuxuu nebigu leeyahay yacqidu الshayطaanu calىa qaafiyati ra'si axadikum idaa huwa naama 3 cuqad marka qofku uu seexdo ayaa shaydaan 3 dabar ku xidhahaya oo madaxa ama qaafiya dushiisa wuxuu saarayaa cuqudooyin buu ku xidhahaya cuqadkuna waa guntimo shaydaanku habeenkii markaa seexati kuu isticmaalayo wey 3 dabar ayuu kugu dabrayaa oo guntimaha ah
مركز النبي يقول فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده هادو قفك هرددي معان كبدنيد كسو جلجشو كسو كعو oo ilaahayna uu xuso oo adkaartii uu akhristo markuu qofku soo kaco xarkii iyo guntimihii lagu xiro mid baa furanaysa fa in tawaddaa in halat uqda haduu waysa qaatana mid kala go'day fa in salla in halat uqda hadii salaadii subxiga uu tukadana oo jamaacadii iyo khayrkii uu ilaaliyana kii saddexaad baa go'ay fa asbaha nashidan tayyiban nafs waxa waagu u bariya asagoo ah mid wanaagsan oo firfircoon oo waxa weeyaan طيب النفس naftiisu ay diib tahay oo qalbigiisu qabow yahay oo qalbigiisu qanaaco leeyahay oo badankiisu firfircoon yahay ayaa waagu u bariyahay saasaa ku waa barista wa illa asbaha khabitha an-nafs kaslan ayaa nabiga calaysay salaam haduu sida yeeli waayo oo xuduurka jamaacada iyo khayrka ilaali waayo wuxuu waagu u bariyahayaa asagoo khabithu an-nafs min nafxintiisu xuntahay كسلان أو وهسلو أو بلايا دول سارنتهاي حركيه كحرنا أبو ساك الله سكاعي مركزو إسكت دعها ميلو السعودة ونقرنها وقف دمات سوي صلى الله عليه وسلم على جماعة دي بعد عفت ساك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحى الله شيء قف سيحنيا وإلى قرح ضعي كسر بحث إسكهود دهي مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل بال الشيطان في أذنيه كاسي واقف وحويان شيطان لبدا نقول أقول كاديي أو أذنه شك من الراوي أما نكتيس الشيطان كو كاديي وحامرك الربا ولا ليال إنه صلاة دان إلى على النوم نلاشينا لقب الله وما أنت إنا وحكب بدلنا طبعا كابشار أو وين وصلاة دا الصبح أي لا ضحي وإلى الإله